anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Holland waxaan salaan khaas ah u soo jeedinayaa oo caawa aan nasiib u yeelanay inaan la kulno madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kaloo iyadana salaan khaas u soo gudbinayaa wafdiga heerka sare ah oo la socda oo uu ka mid yahay ambassador Nuur Cabde asaguna si gooni ah u salaamaya inta kadib runtii caawa wax fursad aad u qaali ah in madaxweynaha dalka ugu sareeyay aan fursadan qaaliga ku helno runtii waa nasiib aan yeelanay guud ahaan tanjaaliyada guud iyo Yurub sida looga noolyahay waxaan kala mid ahay oo aan in badan aan ku celinayn gudoomiyaha jaaliyada guud ee Belgium waxaana dad isku duruuf ah waxyaabaha uu ka hadlay waa maaragtay waxyaabihii laftiga hadda ii qoraa oo aan ka hadlay tahay runtii guud ahaan ku noolaanshaha halkaan aan ku noolahay waxaan aad ugu faraxsanahay ka bixitaanka ummadda Soomaaliyeed ee ku meel gaarka ka baxday dadka Yurub ku nool oo dhammaan kulay magaalooyin kala duwan halkaan laftigeeda wada jooga oo Yurub qaybaha kala duwan ka yimiday waxay qabaan yididiila ah goorma noqonay xamar ma tagtay goorma adiguna baxe waxaan wada leenahay yididiila aad weyn runtii madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ka sugaynaa sidaan halkaan u soo galnay inuu ka shaqeeyo sidaan halkaan uga bixi lahayd oo aan dalkeena ku noqon runtii in badan asagoo ka hadlaya jaaliyadaha hadday noqon lahayd Minnesota oo uu mar dhow tagay waa macnaa waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd dal hadduu burburo ama ay dhibaato ku dhacdo waxa dhisa oo wax u qabta dadka dibadda soo aaday oo ku kordhiya dhaqaalaha oo ku kordhiya wax ay barteen runtii waxay nagu abuuraysaa annagu qofka macnaa dadka dhaqaalaha leh ama dadka ganacsatada jaaliyada ummada kala duwan ama aqoonta kala duwan leh sida aan halkaan u joognay inaan waddankeena ku noqono oo uu u noqdo waddankeena sida Belgium iyo Holland oo aan ku nool oo kala runtii diyaar garow badan farxadda oo iga badata darteed wax badan ma dhihi karo waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow waxaan ka sugaynaa wax weyn runtii insha Allah waxaan rajaynaynaa ummad Soomaaliyeed oo garba isqabsatay dhibaatadii hore ka baxday insha Allah waxaan ku leenahay maaragtay adigana in Ilaahay maaragtay kula qabto annagana insha Allah dadkii maaragtay muxuu ahaa inta maaragtay muxuu ahaa joogto meesha si nabadqaba ugu soo noqda ka qayb qaata dib u dhiska dalka waxaan ku leenahay hamali